الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا أحبابتا خيارتا ميل كستو آد جوجتان إلهي سبحانه وتعالى وحان كبرينا إنو توفيق دنا وافجيو خير كان هادي يجير نغو كلميو حالي وحان سوق رئيس سؤال ku aragteen barta facebooka in badanna waad ka soo jawaabteen ma sixir baa mase sabab baa jirta buu ahaa bay ahayd su-aashu ma sixir baa mise sabab baa jirta gundhiguna wuxuu ahaa adduunka waxaan arkaynaa dowlado shirkado ummado isku duruuf ahaa dhibaatooyin badan iyo caqabaad badan iyo challenges badan ay haysteen qaarkood dhulka fadhiyeen dambaska fadhiyeen from the ashes waxay dhahaan afka qalaad ya kadibna qaarkood sare u kaceen oo ka boodeen oo dambaskii ka tallaabsadeen oo ka kaceen qodxanyihii iyo dhibaatooyinkii iyo caqabadihii ku hareereysnaana ka dabaasheen horena u socdeen oo ka caafimaadeen iyo qaar weli meeshii dhex fadhiya ay isku duruufta ahaayeen dambaskoodii dhex fadhiya ama dhibaatadii iyo caqabadihii weli ku hareereysan yihiin oo la legdamaya oo ka gudbi kari waayey ka boodi kari waayey ka kici kari waayey ka dabaalan kari waayey weli ay ku dhegan yihiin iyo qaar ayba la tagtay mawjadii hafisay dambaskii qariyey kadibna tartankii adduunka ka baxay oo isaga baxay oo saaxadii ama saaxadii ciyaarta ama saaxadii dheesha ka baxay oo markaa taariikhdii ka baxay wakti mucayana markii ay caqabadihii iyo dhibaatooyinkii iyo waxyaalihii ka hor yimi ay ka bixi kari waayeen marka saddexdaasay u qaybsameen dad isku duruuf ah oo isku meel jooga ama arday iskuul ku jirta ama isku jaamacad ku jirta oo imtixaano adagi ka hor yimaadeen qaarna waa ka boodeen qaarna meeshii bay fadhiyaan weli waa legdamayaan muddo dheer 10 sano ah qaarna waa hareenoo waxba dheeshii way ka baxeen saasay u qaybsameen marka waad ka jawaabteen waxaad tiraahdeen sixir maaha waana runtiin intiina aragtay sixir maaha sababaa jira kaasuna uu dhibkii kaga dabaashay iyo caqabadihii kaga booday dambaskii ka kacay kanuna weli ugu dhex rafanayo oo ugu dhex jiro ugu dhex fadhiyo midna uu isdhiibayo markiiba uu ka baxay sheekada waa sabab maxaa dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan wax walba sabab yaa buu u yeelay ilaahay subxana wa tacala qisadii ninkii la odhanayay dulqarnayn buu noogu sheegay inaa makanna lahu fi اlardi waaataynaahu min kuli shayin sababa faatbaca sababa ya sabab markii uu xataa u tegey qoladii joogtay maaragtay bayna sadeynka oo yajuuj wamajuuj ay dhibayeen isagu wuxuu yihi xoolihii ee alaabtii keena wax idinkama rabo aniga lakin expertiskii buu watay expertis sababihii layskaga moosi lahaa nimankan yajuuj wamajuuj buu waday aatuni zubra alxadiid keena birta keena ya xataa ida jacalna qaala aatuni ufriq calayhi qidr ii keena aan ku shubo xagga ka soo qabta xagga ka xeega isagu xooggii way hayeen laakiin aqoontii
iyo sababtii looga bixi lahaa ama layskaga moosi lahaa dhibaatadan ay ku hayaan dadkaanu ayayan garanayn. taasuu la yimi, tii buuna ku badbaadiyey. marka sabab baa jirta, wax walbaana sabab bay leeyihiin. adduunkan qaanuunka la yidhaahdo sababiya ama qaanuun alasbaab baa adduunkan ka shaqeeya. adduunka mucjizaad ma aha. ilaahay mucjizo wuu samayn karaa, laakiin mucjizaad ma aha. qaanuunkan ku soconnaa waa qaanuun asbaab oo mucjiso. ilaahay subxaanahu watacaala qofka inuu wiil iska siiyo, gabar iska siiyo, ilmo siiyo, markiiba waa heli karaa. ilaahay waa qaadir, ya kun fa yakunu waay. laakiin wuuna yeelay, laakiin sabab buu u yeelay. waa inuu qofku xoolo sameeyaa, waa inuu guursadaa, waa inuu aqalgalaa, waa inuu bixiyaa, kharash bixiyaa, ilmihii yimaadaa, kadibna ilaahay subxaana wa tacala u qadara. ilahay waa bixinaya, laakiin sabab buu u yeelay. wax walbaa marka sabab bay leeyihin. sixir ma jiro meesha, wax sixir la yidhaahdo ma jiro. ummadda hartay sabab bay ku hartay. ummadda dambaska dhex fadhidaa sabab bay dambaskii ku dhex fadhidaa. kan ka kacay sabab buu ku kacay, uu qaatay oo uu raacay, ayuu kaga gudbay. kan ay la tagtay oo maaragtay ay qaadayna sabab buu ku haray. taas waa qodob koowaad. qodobka labaad, jawaabtu waa saas aad u sheegteen. qodobka labaad, hadalkan wuxuu iga yahay mar walba walaalayaal, waxa weeye dee waajib baa ay saaran ummadayda wixii naseexa ah oo tala ah inaan la wadaago, oo waajib bay igu tahay. adduunkaad maraysaa, waxbaad akhrinaysaa, waxbaad arkaysaa, waayo aragnimaad kororsanaysaa, cimri iyo aqoon baa kuu kordhaysa mar walba. marka mar walba naseexada waxa ay kula tahay inaad ummadaada aad jeceshahay, oo wanaagga la jeceshahay, oo dambaska inay ka kacdo aad la jeceshahay, oo dib u dhaca inay ka kacdo aad la jeceshahay, oo fakriga inay ka baxdo aad la jeceshahay, hodannimo gaarto, oo kala daadsanaanta inay ka kacdo urursanaan ay gaarto, oo adduunka ay la tartanto aad la jeceshahay, waxa kaa hadlinaya wey. marka waa waxa aniga taasa iga hadlinaya. waana naseexo, addiinu nasiixa. waxay u tahay dhammaan dadka oo dhan, ummadda oo dhan. qof gaara kuma socoto, qof gaara kama socoto, qasad gaara oo kaleeto ma laha. ilaahay dartiis ayaan rajaynaya in sha allahu tacaala inay tahay. midda saddexaad waxaa weeye caqabaduhu sidoodaba iyo ummadaha dhibaatooyinkan ummadaha hortaagan ama dadka hortaagan, oy qaarna ku dhintaan, qaarna dhex fadhiyaan, qaarna ka gudbaan. sideedaba waxaad ogaataa, adigu haddaad ku haminayso inaad hormarto, waxaa jira mid liddi kugu ah oo ku haminaya inaad dib u dhacdo. haddaad doonayso inaad fadhiga ka kacdo, waxaa jira adduunkan ilaahay subxaanahu wa tacaala qaanuunka asbaabtay ka mid tahay mid adiga doonaya inaad fadhido. haddaad doonayso inaad hormarto oad kacdo, waxaa jira kuwa liddi kugu ah oo ka shaqaynaya inaad fadhido doonaya. marka taasu sideedaba ma aha xujo lagu hormari waayo ama meel lagaga gudbi waayo ma aha. nebiyada ilaahay soo diray mid walba wuxuu u yeelay cadow. waa sabab cadow baa loo yeelayaa, challenges baa loo yeelayaa si uu dacwaddan imtixaanaadkeeda uga gudbo. wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwan. jacalnaa yaa yeelay ilaahay, qadartiisay ku noqotay. likuli nabiyin, nebi kasta, caduwan oo maxay yihiin? shayaaiina alinsi waaljinni. waa shaydaamo qaarkood jinni yahay, qaarkoodna insi yahay, oo isu waxyoonayo. iyagu waxay isu sheegayaan si ay khayrka uga hortagaan, wanaagga uga hortagaan, waxa fiican uga hortagaan. marka taasu waa shay abiiciya. haddii kale nebiyada maxaa cadowgan loogu yeelaa? waxaa la dhihi lahaa ordaya sululuxeeye. adduunka marka sideedaba ma jirto qof guulaystay ama meel gaaray oo aan caqabado aad iyo aad u dhib badan oo yaable aan ka gudbin. marka weligeed caqabadda laguma xoqxoqdo, lagama dhigo wax mushkilo ah. haddaan caqabadi jirin guuli ma jirteen. haddaan caqabaad jirin iyo dhibaatooyin iyo turunturooyin iyo cadow aanu jirin, adigana libintaadu ma soo baxdeen. ka gudbitaankaaga sababaha aad ka gudubtay aad qaadatay ma soo baxdeen, mana muuqateen, lagamana hadleen.
midda saddexaad waxa weeye midda afraad baan dhihi lahaa ummaddan waxaan la doonaya inay noqoto ummad taqaana danteeda oo danteeda wax ku miisaanta adduun iyo aakhiro ee aan ku miisaamin qabiil taageero shaksi ah qof shaksi ah waxyaalo maaragtay dhow aan ku miisaamine ummaduhu ummadaha nooli waa ummadaha iyo dadka ku miisaamo wax maslaxadooda iyo dantooda iyo horumarkooda wax bay wax ku cabiraan ya midda shanaad oo hordhacaan kale aan ku sheegayo waxa weeye ummaddu haddii ay wajahayso caqabaad adag iyo dhibaatooyin badan oo turunturooyin badan ay hortaagan yihiin challenges badan ama caqabaad badan ay hortaagan yihiin oo aan caadi ahayn oo isku murugsan waxay u baahan tahay hoggaan aan caadi ahayn iyo asbaab aan caadi ahayn in lagaga gudbo wax walba waxooday leeyihin dhibaatada caadiga oo xaaladdu iska degan tahay nabadda tahay waxay isaga baahan tahay hoggaan caadiya oo iska qabow iyo dhibaato aan jiro dhibaatadu hadday adag tahay oo caqabaduhu adag yihiin oo xaaladdu adag tahay oo murugsan tahay waxay u baahan tahay hoggaan iyo asbaab aan caadi ahayn yani abnormal wax aan caadi ahayn oo dadka caadiga averageka ah aan ahayn bay u baahan tahay xaalad aan caadi ahayn go-aamo aan caadi ahayn tallaabooyin aan caadi ahayn dhaqamo aan caadi ahayn siyaasadeed oo aan caadi ahayn waxyaalo badan oo sababo ah iyo hogaamin ah oo aan caadi ahayn bay u baahan tahay xaaladda soomaaliya marka aynu fiirino xaalad caadiya ma xaalad dhibaato dagaal sokeeye muddo dheer dowladnimo burburtay dhaqamadii nidaamka ah burburay mu'asasaadkii oo burburay institutionadii oo burburay cadowyo badan oo mid dhow iyo mid gobol iyo mid caalami leh damac adduun oo badan oo dibadda ah gudaha kala qaybsanaan qabyaalad damiir xumo badatay horor dadkiioo noqday bahalo noqday dhibaatooyin yani dhaqan doorsoomis dhacay wax badan oo dhibaatooyin oo aan caadi ahayn baa meesha yaalla waa la isla ogoli dhibaatadaas aan caadiga ahayni waxay u baahan tahay hoggaan aan caadi ahayn waxay u baahan tahay sababo la qaato oo aan caadi ahayn dadku aqoon oo dadku aanay arki jirin oo ay la yaabaan waxay u baahan tahay tallaabooyin geesinimo leh oo aan dadku aqoon jirin ilaan waxaanay aqoon jirin bay hayaan dhibaato aan la arkin oo la maqlin oo lala yaabo baa meesha taalla ya ya marka waxay u baahan tahay waxaan caadi ahayn wixii aan caadi ahayn waxaan caadi ahayn bay u baahan yihin wixii caadiyana wax caadiyay u baahan yihin marka ha ila yaabinina haddaan had iyo jeer hoggaan ku soo celceliyo oo aan idhaahdo oo ilaahay ka baryo sida ducadeydii inuu ilaahay ummaddan u soo saaro hoggaan aan caadi ahayn waayo markii aan daraaso ku sameeyey waasaan idhi waa idinla wadaagayaa waana arki doontaane markaan daraaso dheer muddo dheer baan arrinkan hoggaaminta waxaa igu horreysay 1981 markii ugu horreysay aan tababar ama wax akhris aan ku bilaabo waa imis 40 sano iyo siyaada waay marka intaas waa akhrinayo waa eegaya adduunka shirkadaha dadka yani hoggaamintu ama leadershipku wax la yidhaahdo waxa uu yahay leadershipku waa vital waa wax muhima waay marka isagaa kala duwan sababta iyo meesha ay ku kulanto biyo dhacna waa leadershipka waa hoggaaminta waay ummadaha shirkadaha bulshooyinka waxyaalaha isku bedelaan ama caqabadaha isuga gudbaan koo waxaa ka ah arrinkaas isaga saasaan ugu soo celcelinaya marka aan ku celcelinayo ha ila yaabinina waxaan idinla wadaagi doonaa maanta kulankan kooban 4 tajribo tartiib baan idinku bilaabayaa silsilad weeye waa ka hadli doonaa arrintu ma aha maxaan kuu sheegaa su-aashu waa su-aal u baahan in lagu fekero yacni ma sixir baa mise sabab baa jirta marka aan leenahay ummado tusaalan ka soo qaadi shirkado iyo
maamulo kalena tusaalaan ka soo qaaday maanta waxaan soo qaadan 4 shirkadood idin soo qaaday hoggaanku wax walba isay ku soo ururayaan ninba waxaa lagu yiri koorso marsan qaadanaynay oo ku saabsanayd leadershipka waxaa lagu yiri wuxuu yiri shirkad baa jirta waxay iibsataa shirkadaha khasaaray ayay iibsataa haye oo shirkadaha khasaaray hadday iibsato maxay ku samaysaa wuxuu yidhi bas madaxa ayay ka beddeshaa madaxaan ka beddelnaa haykalkeeda iyo nidaamkeedana waxbaa laga beddelaa shirkaddii waxay isu beddeshaa shirkad profit leh faa'iido keenta yani shirkaddii shalay khasaaraysay waxay isu beddelaysaa shirkad faa'iido keenaysa oo mar walba qaanuunkaas ma samaysaan haa mar walba shirkad kasta oo aan iibsano oo khasaaraysa madaxa horta waa in laga gooyo oo marka hore laga diro iyo meelaha muhiimkaayo leadershipka ku saabsan oo waaxaha iyo waxyaalahaas 4 shirkadood baan waxaan u soo qaadanaa waaweyn oo idinka aad taqaanaan adduunka ku aragtaan meel kastoo aad joogtaan baad ku aragtaan badankood ayaan u soo qaadanayaa tusaale shirkadda koowaad waa shirkadda la yidhaahda apple telefoonada iyo ibaadada iyo mac iyo combyuutarada iyo waxaas iyo samaysa wax yar shirkaddaas ninkii madaxda ama raggii asaasayaasheeda ka ahaa asaasayaasha ka ahaa waxaa ka mid ahaa nin la yidhaha Steve Jobs oo aad taqaaniin oo 2011 buu cancer u dhintay ninkaas wuxuu ka mid ahaa asaasayaashii shirkadda laakiin intay shirkaddii shirtay iyo madaxdeedii 1985 baa laga cayriyey shirkadda madaxtinimadeeda waa laga cayriyey ninkaas waa laga cayriyey markii laga cayriyey muddo kadib 10 sano kadib shirkaddii aad bay xaaladeedu u xumaatay khasaarooyin badan baa soo gaaray faa'iido way keeni kari weyd 1997 shirkaddu waxay ku sigatay iflaas waxay taagnayd xaalad yacni inay kacdo shirkadda apple ee aad aragtaan hadda teleefoonadan badan aad wadataan inay kacdo oo xaaladdeeda iflaaska ama kicitaanka ay falisaad ay iclaaniso 1997 dib baa ninkii loogu yeeray waa loo baahday shirkaddii dib baa madax looga dhigay falisaad iyadoo ku jirta xaalad iflaasaa loo dhiibay hadda fiiri meesha cibrada aynu ka rabno waxa weeye dad dambas yaal sidee u kaceen shirkado iyo ummado inay hoggaanka tahay baad ku ogaanaysa shirkaddii markii uu ku soo noqday 1997 waa wuxuu qaatay dhowr go-aan oo uu shirkaddii dib ugu soo celiyo si ay faa'iido u samayso oo dambaska uga kacdo sababta koowaad wuxuu ku qanciyey shirkadda la yidhaha Microsoft ee computer programyada iyo softwarada badan samaysa ee macruufka ah la yaqaan Bill Gates u lahaa shirkaddaas wuxuu ku qanciyey inay share ku soo darsato oo programyadooda qaar ka mida Macintosh ay samayso 150 bilyan oo investment ah buu shirkaddii ka soo geliyay 150 milyan ma bilyan sorry taas waa qodobka koowaad shirkaddii xoogaa wuxuu soo geliyey horta raasumaal midda labaad apple waxay samayn jirtay oo shirkaddu waxyaalaha ay la khasaartay ka mida focus la'aan oo waxyaalo badan oo products ay isku furtay 350 item ama product bay soo saari jirtay ama ka shaqayn jirtay 300 buu dhulka dhigay oo ka saaray inaanay apple mar dambe shaqo ku lahayn konton kaliya ka soo reebay productski 3 shaqaalihii meesha tuurnaa ee in badan kharashkoodu yaalana banaanka u tuuray 3,000 oo shaqaalaha buu almaan xiriy waa xiriy maxaa sanadkii koowaad maxaa isbedelay marka go'aamadii iyo tusaalayaashii u qaatay ninka la yidhaahdo Steve Jobs waxay keentay waa 97 waa sanad qura 97 buu yimi go'aamadaanu shirkaddii ka bedelay dib buu shirkaddii u shaqaysiiyey sanadkii ku xigay 1998 shirkaddii waxay keentay faa'iido 309 milyan ah ayay keentay
bal hadda u fiirso qofkii caqligii wuu fahmi karaa wuuna garan karaa watilka alamthaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun mar baan waxaan qori jiray inta caqliga leh keliya maqaalaadkayga soomaalita kusoo bixi jiray saasay ahayd haddana inta caqliga leh un baan la hadli dee intaan caqliga lahayn lalama hadlo maantana shirkadaas qiimaheeda suuqa ahi waxay taagan tahay 1 trilyan ka badan 1 bilyan bay suuqa ka joogtaa tusaalaha labaad shirkadda la yidhaahdo starbucks 1 trilyan waxaad dhihi kartaa masalan 40 wadan oo africa ah ayay apple ka budget badan tahay ama wadamada africa oo la isku daraba intooda badan ayay ka budget badan tahay shirkadda starbucks companyga la yidhahdo qaxwaha sameeya coffeeda waxaa madax ka ahaa oo ragga saasheeda ka ahaa nin la yidhahdo howard schultz 2000 sanadku markuu ahaa buu ka degay shirkadda madaxtinimadeeda CEO-da hogaamintii buu ka degay combanygii sanadihii ka dambeeyey aad baa waxaa soo galay dacfi baa soo galay hogaankii baa isbedelay de moogtahay dacfi baa soo galay combanygii wuu hoos maray aadi 2008 marka la marayo 2007 shirkaddii 50% kala bar qiimaheedii suuqa hoos buu u dhacay qiimihii suuqa starbucks ee boorso hoos buu u dhacay 50% way khasaartay qiimaheedii odagii baa la raadiyey oo herdimado ku yeero madaxdii baa la bedelay odagii baa lagu soo celiyey madaxtinimadii shirkada go-aamadu qaatay marka degdega okay go-aamo degdeg u qaatay maxaa ka mid ahaa horta wuxuu xiray dhammaan dukaamadii iyo koofiyadii aan faa'iido fiicani ka soo gelahayn shirkadda ama suuq fiican aan lahayn dhammaantood wuu xiray dhowr kuna dukaan xir wuxuu kaloo sameeyey shaqaale badan oo culays iyo mushaar shirkadda ku ayan loo baahnayna waa banaanka u tuuray haye isbedello kala duwan oo saasuu ku sameeyey shirkaddii dib bay isu bedeshay dambaskii iyo khasaaradii iyo filisaadii ay taagnayd way ka soo kacday 2017 dhowr sano kadib 22 bilyan ayuu ahaa incomekeedu 22 bilyan oo dollar suuqana waxay ka joogtaa 84 bilyan ayaa wax soo saarkeedu yahay hadda masalan dalka Kenya oo kaleeto markaa aragto dalalka Africa dalalka ugu fiican ka mid ah soo saarkiisa dhan sanadka dhan yaa waa 90 bilyan 95 bilyan 97 bilyan way soo saarkiisa sanadka dhan GDP-giisa iyo waxaa isku mid ah Starbucks 2018 wuu ka degay shaqada wuu ka tegay waaya shirkadda saddexaad waa aan soo qaadan waa shirkadda baabuurta samaysa oo la yidhaahdo Chrysler ya shirkadda Chrysler ee samaysa baabuurta saddex shirkadooda Mareykanka ugu waaweyn baabuurta sameeya baa jira shirkadii waxa weeye General Motors shirkadna waa Ford shirkadna waa bahasha la yiraahdo Chrysler 1977 shirkaddu bankruptcy bay iclaanaysay bay file garaysay inay kacday shirkadaas ay hartay shirkadii kalena way ka hartay dabcan ha yeeshee ee guddigii boardkii shirkaddu madaxdii shirkaddu ama majliskoodii waxay qaateen go-aan ah shirkadda Ford nin madax ka ahaayoo laga soo cayriyey 2 asbuuc ka hor waqtigaas ayay qaateen oo shirkaddii madax uga dhigeen waxaa la oran jiray ninka Lee Iacocca magac adag weeye xataa shirkadda dadka shaqeeya mayan kari jireen waagii hore waxay oran jireen CEO of Chrysler saasay oran jireen marka calaa kulli xaal 1978 ninkaasaa shirkaddii madax looga dhigay waa shirkad filistay oo suuqa taal dhulka taalla waaye ya dhulka taalla waaye waaye ninkaasu dabcan shirkaddii waxay yidhahdeen dadka wax ka qoray bugag baa laga qoray dee waa la daraasaynaa adduunku waxaan cilmiga uu daraasaynaa Japan baa daraasaynaa Korea daraasaynaa China daraasaynaysa qolo walbi waxay daraasaynayaan sida adduunkan uu ku hormarayo ayay daraasaynayaan marka
nin professor ka ah jaamacadda California University of Berkeley oo wuxuu yiri shirkaddii flip wuxuu ku sameeyey upside down yani shirkaddiina madax iyo majuu u rogay macna madax iyo majuu u rogay waa meeshii aan idin lahaa ogaada qaa'idka ama hoggaanka wax aan caadi ahayn u yimaada waa inuu qaataa go'aamo aan caadi ahayn oo ah shirkaddii upside down buu ka dhigay madax iyo majuu u rogay go'aamo aan caadi ahayn buu la yimi macnaha kow horta dowladda maraykanka kongareeska ayuu wuxuu la galay dood wuxuu la galay mufaawadaad negotiation in shirkadda deyn la siiyo bayl lagu badbaadiyo 10 sano ay ku bixiso 1 bilyan iyo bar 1.5 bilyan bay dowladdu khaznada dowladdu inay deymiso dee shirkad weyn oo qaran waaye si loo badbaadiyo oo deyntaas loo siiyo 10 sano ay ku bixiyo waaya 10 sano baylkaasuu qaatay midda labaad wuxuu sameeyey shaqaale badan oo aan maaragtay markaas loo baahnayna waa celiyey warshado badan oo shirkaddu lahayd wuu xiray albaabadu isugu dhiftay madaxda shirkadda executiveska oo uu isagu ka mid yahay wuxuu yacni ku qanciyey in ay mushaharkooda la dhimo bal $1 laga dhigo ragga executiveska oo isagu uu ka mid yahay madaxda waaweyn $1 keliya inay qaataan waayahay isaga iyo madaxdiisu madaxdii kaleeto uu shirkadda saas u xamaaso geliyey u shaqaysiiyey oo $1 inay mushaharkooda noqdo ku qanciyey waxay ku wareegeen masaanicdii iyo shaqaalihii shirkadda inay ku qanciyaan oo la fariistaan oo la hadlaan in haddii mushahar dhimid la sameeyo ama shaqaale maaragtay meesha laga saaro inay ku qancaan wayna ku qanciyeen oo waxay ka dhigeen on board markii ugu horreysay wuxuu sameeyey wax aan yani idaarada ama managementiga aad baa loogu daraaseeyaa ilaa hadda iyo unioniska iyo jaamacadaha waxa weeye inuu ku qanciyo union bay leeyihiin soo maaha naqaabay leeyihiin shaqaalo ila waa nus milyan shaqaalo weeye maaha dad yar marka wuxuu ku qanciyey boardkii yani milkiilayaashii ee shirkadda in representative qof mathalaya shaqaalaha uu shirka miiska boardka soo fadhiisto miiska boardka inuu soo fadhiisto waxay leeyihiin khubarada wax ka qoray dadkiiba wuxuu ka dhigay shirkaddii waxay leeyihiin oo kaleeto oo tale ku leeyihiin oo magac ku leeyihiin dadka haddaad rabto inay kula socdaan ummadda haddaad rabto inay kula jaan qaado ummadda haddaad rabto inay vision kula qaadato ya oo wax kula qabato ilan keligaa wax ma qaban kartide waxaad u baahan tahay on board inaad ka dhigto dadka waa inaad on board ka dhigtaa on board waa inaad ka dhigtaa waa inay kula socdaan waa inay kula shaqaynayaan waa inay kula dareen yihiin waa inay kula warar yihiin waa inay kula macluumaad yihiin oo aad iyaga waxay leeyihiin ka dhigtaa marka shirkad baa saas laga dhigaya dal maxaad ka malayna marka ninkaas wuxuu sameeyey yani shaqaalihii nin ka mida oo mathalaya baa shir walba oo boorka uu fadhiyo waa hadda iyadoo la yidhaahdo golaha wasiirada ha soo fadhiisto qof shacabka ama arrimaha bulshada mathalaya oo dhex fadhiya waa inuu jiraa oo go'aamada wax ka og oo macluumaad bixinaya oo talooyinka bixinaya oo dadku waxay ku nool yihiin sheegaya saas ugu talagalay marka shirkiina wuxuu soo fariisiyey arrintaas waxay ahayd arrin aan looga horeyn waayo hoggaanka aan caadiga ahayn mar walba xusuusta waxaan caadi ahayn buu keenaa walaalayaal waxaan caadi ahayn buu qaataa go'aamaan caadi ahayn buu qaataa warshado badan uu xiray shaqaalo badan uu cayriyey mushaharooyinkii waa dhimay shaqaalihii waa qanciyey oo dadkii uu ka soo qayb geliyey can you imagine ma u malaynaysaan maxaa natiijadii noqotay go'aamadii uu saas qaatay sanad iyo 2 gudahood sanad gudaheed shirkaddii booliska wuxuu kaloo ku daray ibdaac cusub ibdaac innovation waxaa la yidhaahdaa hoggaanka iyo hadalkaas waxaa iska lahaa Steve Jobs ninka Apple wuxuu yidhi hoggaanka iyo kan la hoggaamiyo waxaa u dhaxeeya waa ibdaaca waa hal abuurka innovation is the difference between the leader and the follower waxa u dhaxeeya labadaas kaas weeyo marka halku dhagiisu ahaa ninkan wuxuu sameeyey Lee Iacocca wuxuu sameeyey engineer buna ahaa asal ahaan yani baabuurta iyo design marka wuxuu sameeyey design cusub
buu kusoo kordhiyey shirkadda sancadii ay samaynaysa baabuurta. baabuurkan vanka la yidhahdo maraykanka aada looga isticmaalay waayadaas iyo sagaashameeyadii iyo wixii ka dambeeyey iyo siddeetameeyadii, kadibna adduunka o dhan ku faafay, kadibna shirkadaha baabuurta oo dhan ama jabaan ha noqoto ama faransiis ha noqoto ama jerman ha noqoto ay soo saareen. waxa ugu horreeyey li ayakoka wax bilaaba baabuurkan vanka la yidhaahdo. waa baabuur yar oo xarago oo haddana faamili ah oo reerkii oo dhan ay fuulayaan, caruurtii baa lagu guraya, alaabtii baa la saaraya, van 3 baabuurle ah, ma garanaysaa. sidaas buu baabuurkaa wuxuu ugu horreeyey Chrysler baa samaysay, isagaana soo hindisay oo wuxuu sameeyey baabuur cusub inuu soo saaro. arrimahaas sababtood waxay noqotay shaqadii shirkaddu inay markiiba ay isbedesho. deyntii dowladdu ku lahayd 10 sano ahayd 3 sano ku bixiyey, 3 sano gudahood, iyadoo 7 sano weli dhiman tahay ayuu bixiyey deyntii lagu lahaa ay 1 bilyan iyo barka ahayd. shirkaddiina waxay keentay inay faa'iido keento sanadihii ka dambeeyey, dhammaan ay faa'iido noqoto, shirkadiina ay tartan la gasho, faa'iidooyinka ugu badnaana ay keento. 1992 buu ka degay markaa madaxtinimadii shirkadda. hal tusaale kaleetaan ku ekaysanayaa maanta, dib baan insha allahu tacaala ka wadi doonaa silsiladda. shirkadda la yidhahda Xerox iyaduna waa shirkad maraykan oo caalami ah macruuf oo adduunka. waxaan shirkadahan usoo qaatay dabcan waxaan la inkiri karin oo waaqaca waa shirkadaha maraykanku adduunka caalamka iyaga haysta, shirkadaha ugu waaweyn 500 fortune marka ay la soo baxeen 500 oo shirkadood oo adduunka ugu waaweyn may leeyihiin. marka Xerox shirkadda la yidhahdo waxay samaysaa makiinadaha, kuwa wax sawira, kuwa koobi gareeya, kuwa waxaasoo dhan bay samaysaa. shirkaddaas markan waxaan u helinayaa xagga dumarku inay laftigooda hoggaanka qayb fiican ka noqon karaan. shirkaddaasu sanadkii 2000 iyadoo shirkad fiican oo shirkadaha waaweyn ah ayaa khasaaro ku dhacday. shirkaddii dhulkay gashay, ciidday soo taabatay. awey maxaa dhacay? ciidda la soo taabatay duruuftu waa duruuftii meesha, waa maraykan, shirkaddu waa maraykan, shirkaddu shaqadeedii waa leedahay, shaqaalaheedii waa leedahay, waa hoggaanka. iyadoo shirkaddu waxaa markaas ay sanadkaas 2000 ay khasaartay 273 milyan bay khasaartay. deyn waxaa lagu yeeshay 17 bilyan. annagaa inteedu roonay 5 bilyan laynagu lahaa mise 4 bilyan. soomaaliya oo dhan qaran dhan baa 4 bilyan lagu lahaa, shirkaddan keliya 17 bilyan oo deyn ah baa lagu lahaa. marka waa inay dhulka gasho soo maha. 2001dii waxaa guddigii shirkadda milkiilayaashu madax uga dhigeen gabar la yidhaahdo Ann Malky la yidhaahdo baa looga dhigay madaxa shirkadda. haweeneydaasu isbedel bay shirkaddii sidii Acoco kala waa leader. bal u fiirsada waxaa tusaalayaalkan usoo qaadayna amhilada ama tusaalayaalka waxa weeye hoggaanka. qur'aankana waa lagu sheegay, sunnadana ilaahay waa ku sheegay, cibaadadeennana waynu ku aragnaa. waa hal ruux waay, hal ruux, laba ma laha, hal ruux waay. laba hoggaan ma jiraan. shay walba hal ruux baa hoggaamiya, laba ma jirto, 3 ma jirto. meel 3 hoggaamiso hoggaan ma leh, meel 2 hoggaamiso hoggaan ma leh, meel 5 hoggaamiso hoggaan ma leh. hal ruux waay. inta kale waa subordinate, way isaga ku wareegtaan, falagiisay ku wareegtaan. hadduu rabana way la joogay, hadduu rabana wuu ka tegi. hal hoggaan waaye amaam allahina ilaahay saas inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi. salaada bal haddaad ka waran 2 imaam aynu horgelin, suurtagal ma tahay? xaasha lilah. adduunkanna ilaahay wuxuu yidhi low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata. haddii 2 ilaah ay adduunka maamuli lahaayeen, adduunku waa burburi lahaa, waa baabi'i lahaa. ya marka ma jiro hoggaan. haddaad maqasho hoggaan intaasaa wada jira, waa qalad waay, wax saxa maaha. diin ahaan uma aha sax, caqli ahaanna sax uma aha, maamul ahaanna sax uma aha. dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay ku faanaan, laakiin sax maaha.
hal hoggaan baa jira, hal hoggaan, isagaa mas-uula, isagaa xisaabteeda xumaan iyo samaan leh meesha wixii ka soo baxa kambanigaas dalkaas waxay noqoto ya marka taas waa in aada loo ogaado. dadka qaar baa laga yaabaa inay u fahmaan si wada jira nacam, yacni qaa'idku ama hoggaanku wuu la tashadaa dadku la tashadaa, laakiin isagaa go-aanka gaara keligiis weeye, isaga weeye qofka maxaa xisaabta lala xisaabtamaa. gabadhaas waxay samaysay marka waxay samaysay shirkaddii Xerox, iyaduna sidii ninkii oo kale waa hoggaanka meel yimaada sabab un baa lagu qaadi karaa, waa in sababo la qaataa lagu horumariyo waxaan lagu bedelo ya. waxay cayrisay 22,000 oo shaqaale ah oo aan ziyaado ah. waxaa weeye had iyo jeer waxaad arkaysaa hoggaamada wax badbaadiya waddamo ama shirkado ama yacni dhibaato meel ay ka taagan tahay, hoggaamada badbaadiya 2 qodob bay oo ka mid a waxyaalaha ay tallaabooyinka ay qaadaan oo ay ka sameyn yihiin baa jirta. qodob waxa weeye nafaqaadka ama expenseska, ilan meesha waa meel khasaaro ku jirta ma ogtahay oo dhaqaale xumo ku jirta. expenseska cost control wax la yidhahday sameeyaan, waa la dhimaa, cut of costs, costiga way dhimaan, warshaday xirayaan, shirkaday xirayaan, wasaaraday xirayaan, maxaan kuu sheegaa shaqaalo badan bay cayrinayaan, dad badan bay kala dhimayaan, cost bay samaynayaan. midda labaadna waxay samaynayaan dakhliga inuu kordho, inay dhinaca kaleeto ka sameeyaan, inay investigarayaan sidii dakhliguna u kordhi lahaa. marka haddii very simple adigu waa fahmi kartaa, haddii shirkaddii ama dowladdii ama maamulkii kharashkiisana la kontrolo oo la yareeyo, dakhligiisana u bato, hodan buu noqonaya waana hormaraya. very simple, waa saasay ku fududahay hawsha. nacam saas. marka hoggaan kasta oo doonaya meel dhibaata ka taagan tahay ama dal dhibaata ka taagan ama shirkad dhibaata ka tagan inuu wax badbaadiyo, tallaabadaas wuu qaadaya. kulligoodna way qaadeen. hadda 3dii hore oo tusaale aan soo qaadnay way qaadeen. iyaduna sidaysan shaqaalo badan celisay. dadkii madaxda ahaayee waaxaha iyo agaasimayaasha iyo executiveska ahaana ilaa 300 oo kambanigaas iyo 50 ka shaqaynaya ya, ilaa 300 way bedeshay madaxdii. yani sida madaxii shirkadda loo bedelay baa madaxda kaleeto oo kusoo xigtana heerkii labaad bay wax badan iyadana ka bedeshay. 300 bay bedeshay oo madax wada ah, managers bay bedeshay. waxay kale oo samaysay shirkaddaas 17 bilyan oo deyna lagu leeyahay ogow ya. waxay samaysay inay kharashkii meelahan uga soo baxayey inay xoog saarto research iyo development, horumarin iyo cilmi baaris, products cusub lagu soo saaro. wax cusub waa in lala yimaado ya wax cusub in lala yimaado waa ilan meeshan waa meel gabaahiira, waa meel dhibaataysan. waxaa la rabaa wax cusub inaad keento ya inaad keento. marka waxay keentay xoog, waxay gelisay researchkay gelisay iyo development, products cusub la keeno, kuwo kale suuqa laga saaro si ay shirkaddii u nacaashiso. qodobka afraad waxay samaysay 90kii cisho oo ugu horeeyey waa darsi weynkaasuna liaya koo kana wuu sameeyey, kuwo kalena way sameeyeen. waxay samaysay 90kii cisho oo ugu horeeyey. shirkaddu waa shirkad aad u ballaaran, dalal bay ka weyn tahay, dhowr iyo 10 dal bay la bajet tahay oo ka weyn tahay. dadka qaarkiis markaan shirkad umalaynayn waxay umalaynayaan shirkadda maalucda ee meesha ku taalla maaragtay. adeer maaha shirkadda maalucda, waa shirkado dowlada ka waaweyn, madaxdoodu ka mushahar badan adduunka dadka ugu halkaysan ma garatay. marka saas waa inaad ogaato. waxay 90kii u horeeyey cisho ku wareegeysay xafiiska, wax badan ma fariisan. waxay ku wareegeysay warshadaha, shaqaalaha, qaybaha shirkadda, maxaan kuu sheegaa furuucda farciyadeeda iyo brancheskeeda ayay ku soo wareegeysay. qof walba inay dhegaysato, dadka inay waxweysee wax u dhaceen, maxaa sabab u ah, maxaa jira, maxay yahay dhibka jirta, muxuu yahay wax khasaaraha keenaya, maxay tahay caliya la-aanta keenaya, ra'yiga muxuu inay shaqaa kusoo 90 cisho ayay waxay ku wareegeysay dadka dhexdiis, shaqaalihii shirkadda dhexdeed
faracyadeeda allah taladaasoo kaleeto yani waa tala aad iyo aad u weyn ilahay waamruhum shuuraa baynahum wa amruhum shuuraa baynahum ninka madaxda ah waxaa laga rabaa inuu dadka dhex maro dhex qaado habarta la fadhiisto odayga la fadhiisto wiilka yar la fadhiisto gabadha yar la fadhiisto ahlu cilmiga la fadhiisto aqoon-yahanka la fadhiisto culimada la fadhiisto ragga la fadhiisto dumarka la fadhiisto wax weydiiyo wax ka qaato taladooda fiiriyo yacni ummaddiisa waxay ku nooshahay arko kan la qadeeyo kan la casheeyo kan la quraacdo kan la fadhiisto gurigaan galo gurigaas kale kala galo xagga soo fiiriyo si dabiiciya waa inuu noqdaa ya yani waa inuu noqdaa qof termometerkiisu ama yani cabirkiisu la shaqaynayo dadka uu hogaaminayo kambaniga uu hogaaminayo shirkadda uu hogaaminayo dalka uu hogaaminayo waa inuu yahay qof meel iskaga qafilan oo meel ku xiran oo waxba aan ogeyn sida hadda madax badan adduunka caalamka ka jirta oo madax maaragtay sheegana I'm very sorry for them aad baan uga xumahay laakiin waxba ma hagaajin karaan hadday xataa jecel yihiin xataa ma samayn karaan they cannot do it waayo sababo waa jira sababo saan sheegnay sabab iyo qaanuun in la raaco uu jiro baa jira oo ku geyn kara inaad isbeddel samayso oo horumar samayso oo dhibaatooyin ka gudubto sababay leedahaye sixirna ma aha mucjiso samada ka soo degtana ma aha everyone bay dhegaysanaysay tallaabadaasna way qaaday can you imagine sanadkii 2001 baa madax looga dhigay shirkaddii seerkus khasaaraysay ee 17 bilyan oo deynta ah qabtay ee dambaska fadhiday ayaa gabadhaas aan mulkahay loo dhiibay waxay sanadkii ku xigay oo 2003gii 2 sano shirkaddii faa'iido ayay isu bedeshay inay xaqiijiso 91 milyan bay sanadkii u horreysay faa'iido sanadkii ku xigayna waxay gaarsiisay faa'iidada 859 milyan $1 billion yani ugu badnaan waaya maanta afartaasaan ku ekaysanayaa waxaa jira dalal waxaan idinka dhigayay appetizers waxa afka qalaad lagu yidhaahdo ama cuntada lagu sii sugo kuwo kalaa soo socdo badan dowladuhu maxaa sabab u ah oo ay ku kacaan maxay dambaskan kaga kacaan sababuhu maxay yihiin isla ogaanay inaanay arrintu sixir ahayn mucjisana ahayn caqabadahaasee uga gudbeen dhibaatada corruptionow maxaan kuu sheeg qabyaaladow kala qaybsanaanow cadow dibadda iyo cadow gudahayow kuwa ku jilaafaynayow cadow waxa kugu taaganow tabar la-aanow xoolo la-aanow dhaqaalo la-aanow waxaa sidee bay uga gudbeen xalqadda labaad baan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala iyo qodobada u waaweyn ee duruusta aan ka faa'iidaysanayno arrimahan hoggaanka maaragtay keeni kara isbeddelkaas waa hoggaan aan caadi ahayn hoggaan caadi ah kama hadlayno hoggaan an exceptional bay yidhahdaan afka qaad exceptional leadership ama transformational leadership waa hoggaan sameeya isbeddel calaamaduu leeyahay sifooyin buu leeyahay go-aamo gaanoo lagu yaqaanuu leeyahay ma aha wax adduunka ka madow maaha inaga hadduu inaga madow yahay caadi yahay in badanoo inaga mid a adduunka kama madooba waan caddahay adduunka wax laga qoraa jaamacadaha lagu bartaa kitaabadaa lagu qortaa aniga waa idiin soo khulaaseeyey wixii diinta iyo adduunyada iyo jaamacadaha managementiga iyo leadershipka lagu qaadanayey ayaan idiin soo khulaaseeyey in yaroo ka mid a ilaahay subxana wa tacala tawfiiqda hana waafajiyo dalka soomaaliyana ilaahay subxaana wa tacaala hoggaan isbeddelkaas ku sameeya upside down waxay u baahan yahay soomaali waxay u baahan tahay flip saas in loo bedelo o loo rogoy u baahan tahay maamul ahaan nidaam ahaan dhaqan siyaasi ahaan dhaqamada socda siyaasadaha socda waxaa hadda siyaasad aan u naqaano 30 sano u dambeysay waxaasu soomaali waxba ka bedeli mayso wax ay ka bedelayso male hadda idiin sheegaya wax ay ka bedelayso male dhaqaalana ma samaynayso ummadda ma isu keenayso horumarna ma gaarsiin karto waa in qawaaniinta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunanta u dejiyey ee cilmiga ah ee diiniga ah ee idaarada ah ee maamulka ah in la raaco weeye ilaahay subxana wa tacaala ha noo soo saaraan leenahay rabbi subxaanaه wa tacaala ummaddaas naxariistiisa iyo barwaaqadiisa ha ku irsaaqo ilaahay subxaanaه wa tacaala hoggaan khayr qaba
oo diin iyo adduunyo labadaba yaqaana ilaahay subxaana wa tacaala ha ku irsaaqo وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى كل أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.